مركا شيخ شريف وحلا لي أبوك هاللي وحان لو دلقانم كريم بوك هاللي وحان لو غفر إياه إنه خالد جرين كديب خالد جرين بوحدا إنه كديبو أبولوجيس كديبو ويرادو وآخر دمي خلي غير هذا دين ويراد تاس الكونفور قد بل وفوقا عيان لكن في الكونفور قد بل كمقا عيان إن مامل كودو لغوت المامو باي بقول لغوت المامو لابو قبل لغوت المامو قبلنا للقو لابو قبلنا للسكودرو marka saa daraadeeda sida maamul goboleedada kale adii aad u sheegtay ya hadii hata maamul maxaad u dhiiweysay garow iyo boosaaso baa iyo boqol jubbada dhexe iyo jubbada hoose maxay ahayd maxaad u dhiiweysay hiiraan iyo jowhar maxaa u dhiiweysay galguduud iyo mudug oo marka intaas hadaasaad dhihi lahayd baa iyo boqol waa la qabaynay laakiin maamulaad ku sheegtay dadkaas kale kuwaan waxaad ku sheegtay laba gobol oo weliba oo hal gobol isku ah marka sidaa daraadeeda sheekh shariif madaxweynihii hore Soomaaliya waxaan leenahay reer koonfur galbeed waxay kaaga fadhiyaan raaligelin buuxda inaad ka dhiibto arrintan ma aragtida xisbigeena mise waa siyaasi ahaan waa aragtida xisbiga anigu waxaan ku hadlayaa waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga badbaadada shacabka Soomaaliyeed magacoodana waa ku hadlayaa anigoo xisbigaas magaciisa ku hadlaayo haddana dadka deegaanka haddii hataa la inkiri lahaa Puntland la inkiri lahaa saasaan uga hadli lahaa waa dhul Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed baa degan maaha meeshaan ka soo jeeday keliya maaha laakiin haddii Jubbaland la inkiri lahaa oo hadda ku qaldami lahaa waa ka hadli lahaa haddii Hirshabelle lagu qaldami lahaana waa ka hadli lahaa sidaa daraadeedaan yaan uga hadlayaa koonfur galbeed oo lagu qaldamay khalad laga galay dembi laga galay magacooda lagu ciyaaray marka arrintaas xisbi ahaan baan uga hadlanay hadda xisbiga anigoo ku hadlaya magaca xisbiga badbaadada shacabka Soomaaliyeed ayaan arrintan yaan shirkan jaraa'id u qabanay ma waxa rabtaan ka gudoomiye